السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتا إيا أحبابتا أن جعلنا هاي أنا لصعدون كلانتي وعن أو وناسر إيا ماركالي إيا برنامجتي إني قيمه غايها مضنا إيا نقال سعودتين هالكان وحان إن شاء الله تعالى ما أنت قادر إينا وما أرتي إذين صحينا إن شاء الله تعالى قساءات وعن أو وناسر أو كاه الله يو مستر عبيد حاط ما يسمى عبد الله هو ما أنت قصة أن دورين أن كهذا الله قصورة آدي اللي يقوله أو تيرانية له قصتنا waxay ka hadlaysaa xilligii jaahiliga carabta ayaa nin ya hadlaya wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa ku soo baxay nin gorisayo garka afku haya kaleey salaatu wasalaam markaas wuxuu dhahay subhanallaah wuxuu ku yiri maxaa ku helay wiil rasuulka ilaahay oo arrin baan sabay hadda ka hor sallallahu alayhi wasallam marka maxay tahay wiil wuxuu yiri hadda ka hor xilligii jaahiliga ayaa waxa dhacday wiil dagaal ayaan aaday intaan dagaalka aan aaday islaamtaydi ayaan la kulmay buu yiri marka iyadana xilligii habar ilmood la yiraahdo Soomaalida ay dhahaan habar ilmood bay ahayd habar ilmood markay islaamtu dhiig ka soo qabaysto habeenkaasi oo la siiyo la wala fahmay dabcan islaamtii marka uur bay qaatay wuu iska tagay odaygii marka wuxuu yiri waan tagay dagaalkii baan aaday muddo adigu 6 sano ku dhubaan oo hawlaha ku jiray buu yiri المحيي واجه رجع محيي هاي رجع هو روح عاجرين دور كويس هرجيج بركز طبعا ويسعجرين اسمه واحد حتى ما أرتي أي سكو 10 دقائق صافر أكبر دير والقى في عين الماء كوباتي سجوجة ما حما يا سجوجة فرح بدل وضيق هورس أكجوان الماء كوباتا لكن نبى مسح ورا وجهه الماء كوباتا أوكي مركا واحد علي مركا وانصور لابتي بالصبح كبيرة عن ماضي waxaan u imaaday reerkii baan imaaday oo nabad ah gabadhna ay dhalatay 6 sano markaa mise meelaha 4 sano taqriiban 6 sano 4 sano meelahaas ayuu shay qisada ka hadlaysaa marka waxa dhacday gabadhii wuxuu yiri islaantii baan la hadlay maxaa noo dhashay buu yiri gabadh baan noo latay tir waa la soo dhaweeyay hilibkii wixii hawartii waan soo dhawaaday oodkii wixii aan cunay ama luqmada عربية قناة طبعا ده كل واحد isku dhaw keegi waxba jira waxba jira codka waxyaalaha Soomaaliya gaarka la tahay waa shay qiimo badan marka waxa dhacday gabadhii wuxuu yiri gabadha waan dilayaa waxa sameeyay buu yiri u soo shalle oo cadar iyo adu carab soo maray buu dharkan u soo hagaaji buu waan dilayaa gabadha waan dhaqan jiraba ما قوادي قرح بدل 6 bilood jirtay 6 sano jirtay aabaha wax ka soo dhaweysay dilaya wuu dir rabaaba marka waxa dhacay gabadh markaas gabadhii buu sii qaaday iyadoo timaha loo shaleeyo gabadhu halka timaha intuu xog intay u jooga ama dhabarka ama sagaarta wax tiraadaba maskaxay u joogaan oo gabadhu intay indhi kuuleedo gabadh carbeed oo loo balaayo ah oo nooc la amaanayba oo afka qado u yahay xubnuhu la yaabay luqunta ila agta intaas ayaa gabadhu sii qaaday markaas waxay gabadha islaanta ka dabaashay waxay ku tiri way ka dabaashay waxay ku dhahday hebelow amaanaha dayac bay ku tiri haddana mar kale ayay ku celisay hebelow amaanada dayac waxay aad ugu baahsan tahay gabadha ay soo korisay inta leeg ee wax tarka ah in la dilo maanta gabadhii buu sii qaaday ceel وهذا واحد جرجته بلاها ميجا واحد جرجته عيران أو طبعاً هرمات هنا قضاء اللوقد عير وين هذا هو ده بيان كجري وقرفة أما الدوءة كل محلقة ذكر أن نجيسنا يس اللوقد يفهم كذا شان غوتي مركب واحد جوادي بي هالكي أيو كوري ذي جوادي مركب مال قرأة يقبضته جوادي كوري ذي مال قرأة يقبضته كاس waxay tiri marka hore waan ku soo kala dhaafay waxay tiri Allah baydasa gabadha farxsada aabeed ku farxsan oo la socota yaa waxay marka meel bay qabsatay markaas Allah baydina markaas bay tiri bahal dhagax weyn oo damasiyaal ama karkaar ah oo yalla ku qaaday intuu qaaday iyuu dhakad gaasiday gabadhi gabadhi saas u dhibatay qisada maskadiisa dadka u shaqeeyay marka qisadaasi afun marka aad iyo aad baan loo tireensanay marka قصص النبي وشيء كي مركاسا محيالي نيك مركز وصاي إسلام ودعوة دين هو قاطي لكن ما دام إسلامكو وح مركا كوري ودبيو طوّت تهدي ما قبلها ليري صادرت ما أنت مركا يحل جاسي ويكل بدلين لكن هذا حيوان بدن صوت الرجع يقولون أنتوا بقولنا عيان
maalmaha cabdullahi warsaad ka horeysaba social mediaha gaar ahaan tiktok iyo facebookyadii waxyaabaha instagram waxyaabahaasi waxaa ku cusub gabdho qaawan oo xubnahooda ugu wanaagsanaa soo bandhigaya waxaan weydiinaya haye xilliga hadda la joogo sheekada ka qisoonayso oo wa'dul banaadka hadda xilliga ma jiraa dabcan wa'dul banaad gabdhuhu la duubo xilliga macnaha ma jira maya hadda ma jirto oo hadda caalamka waa baxay laakiin si kale u jirtaa oo ah tusaale ahaan habay jirtaa si bay jirtaayo waxbarashada laga reebaa taatu ka daran baa jirta haye ada xusnayn waa gartay kaniinka la cunay ka horreyn waa la soo daadinhay ha oo macnaha in ur la noqoninba kuwa la soo xaaqina gebigoodaba ogaa haye gabadha soo turaya kaniin baa la cunayaa islaamihii ma dhalhayaanba waa gartay hadda arrinta hadda waan gabdhaha kuwii dhala laftooda waa la fiirinayaa waa la arkaya waxaan gabadh islaamta waxaan uur leedahay inay gabartaa la ogaanayaa waa la soo xaaqaya banaanka keenaya waa ku badan tahay hindi iyo reer galbeedka aad ugu reer bariga waa ku badan tahay waan gartay taa marka wa'dul banaadkii waxaa la wax u shaqeeya si aan caadi ahay weliba zaa'id waa laga yaabaa hadda qof adduunka joogo nool oo hadda joogo socdo la dhalay in la dilin waa laga yaabaa haye laakiin waxaa laga hortagayaa kahor intuun dhalanin baabaa la soo xaaqay ama insan uurba gelin ba lagu talagelaya okay marka mararka qaarkood waxaa dhaca cabdullaahayow wiilashiya gabdhaha inay wiilasha aada loo fadilo cabdullahi kolley dabcan waxaa laga yaabaa aabba inaad tahay gabdhihii wiilasha dabcan waxaan isleeyahay inaad wiilasha aad u jeceshaad malaga yaabaa waa same way aad ba labadu aad dabeecadda ragga ma ka duwanta adigu waa ka tegay sheekada kuma jira adugu okay mararka qaarkood waxaa dhaca cabdullaahayow gabdhuhu horta way mashaqo badan yihiin xagga noloshooda iyo korintooda waxaa la yidhi hadda kor waxaa la yidhi nin baa sagaal wiil dhalay sagaal gabdhood dhalay iyo nin 3 wiil dhalay iyo waxay oo walaalo ah wuxuu walaalo wiil gabdhaha ila korin mid wuxuu dhalay 9 wiil mid wuxuu dhalay 3 gabdhood marka wuxuu gabdhaha ila korin 3 gabdhood dhalay wuxuu walaalo ila gabdhaha ila korin gabdhaha waa dharkooda waa tiri badan yihiin soo dharka wax kasta inta lagu xidhayo oo wax saas loo sameeyo waxba jira adigu wiilkan kurayaan wuxuu intuu ka soo qaato yuu iska ordi ila wax waa warshad la qariyo weeyaan waa taglifa badan baa ku baxay gabdhaha dabcan marka ragga soo ay ku haanayaan marka wuxuu ila kori biyo markaas wuxuu yidhi midkeeni gabadha lala korinaya wiilasha ayaan ogaanayna xoolaa la qalay marka biris baa la sameeyey qabaal ama weelal waaweyn oo saxma ayaa lagu guray gabdhihii marka waxay sameeyeen baa la yidhi farqahay ku gurtay raashin ku gurteen macnaha waa loo geeyey wiilasha waa loo geeyey gabdhaha waa loo geeyey markii loo geeyey haddaan anu hadoona waqtina aan soo baaxaamin qisada macnaha wiilasha waxooda markay cuneen way soo reebeen wixii ay buuya way ka tageen gabdhihii waxay sameeyeen waxna way cuneen waxna faraq ku gurteen markaas waxaa la yidhi keeneeba habboon in wax lala koriyo markaas walaalkay hadda ayaan kuu garaabayaa gabdhahan kula korinaya marka gabdhaha taklifada ku baxda aad iyo aad ay u tiro badan tahay cubada waa mahadsan tahay mid kale ogaad haye meesha gabdhaha korintooda dhib badan ay ku jirto iyo nafaad badan oo taklifadan ku baxayso taas bedelkeeda ilaahay subxaana watacaala dhibka ku baxaya ma dayicin addoommada musa dayicin haye janno ayuu ka ratibay maxaa yeele nabiga calay salam wuxuu yidhi ninkii gabadh koriya ama laba gabdhood koriya ama 3 koriya iyo wixii ka badan ba janno xataa gabadh islaamka weydiisa waxay tahay gabadh koriyana waa lagu daray yada sababtoo nabigu wuxuu yidhi saasaan kala horeynaa sooma intaasaan ka horeeya gabdho markaa waxay qaali ku yihiin ninkii gabadh intuu koriyo tarbiyada wanaajiya oo ka soo baxa janna bannaan ku taala waa mahadsantihi asxaabta hawada nagala saaxiibayow intaas ayaan ku koobin qisadii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu